السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالي السؤال هذا مركز اليوم مقال دنيا maanta oo ku socda isbedel xawaare leh ayaa xirfadaha casriga ah noqdeen furaha guusha shaqo iyo ganacsiga. Haddii ay ahaato dhanka tiknoolajiyadda iyo dhanka digital creative-ka ayaa bedelay habkii hore ee loo mari jiray ganacsiga iyo shaqada. Hadda taasoo keentay in xirfado cusub loo baahan yahay si loo daboolo baahida suuqa mustaqbalka ka jirta. Barashada xirfadaha waxay u horseedi kartaa qofka inuu si tartan leh uga muuqdo suuqyada. Waa muhiim inaad fahanto isbeddelka ka jira tiknoolajiyadda, sida loo adeegsado aaladaha casriga ah ee ugu fududeynaya shaqooyinka. Intaa waxaa dheer, waxaa muhiim ah in qofku dejiyo qorshe waxbarasho ku baranayo, adigoo maalin walba joogteynaya oo baranaya mowduucyo muhiim ah. Tusaale ahaan, waxaa barashada koorsada aad doonayso inaad barato, waxaa kale aad ku baratayso waxaad baratay. Barashada xirfadaha casriga ah waa maalgashi nafeed oo muhiim u ah, waxayna qofka siinaysaa awood uu uga faa'iidaysto fursadaha ka jira suuqa mustaqbalka. Guusha xirfadeed waxay ku xirnaan doontaa kartidaada inaad barato, aad la jaanqaado suuqyada mustaqbalka iyo wixii la mid ah. Skills-ka jira suuqyada mustaqbalka oona high income ku ah inay ka bilaabeyno oona soo koobeyna oo aan rabin inaan ku cajisto muuqaalkeena. Number one waa digital marketing. Suuqgeynta digital waa hab loo isticmaalo internetka, social media iyo qalabyada tiknoolajiyadda si loo xayeysiiyo products-ka iyo services-ka ama summadaada ganacsi. Waxay diiradda saaraysaa korna u qaadaysaa muuqaalka iyo iibinta iyadoo loo adeegsanayo xog iyo falanqeyn. Siyaabaha ku baran karto xirfadda digital marketing waxaa ka mid ah inaad ka bilowdo koorsooyinka lacag la'aanta ee ku jira Google Digital Creator iyo HubSpot Academy. Kale waxaan kuu sheegaa platform-kan ugu jeclahay haddii aad dhanka waxbarashada, kaasoo ah YouTube. Waxaana xoogga saartaa oona ku celcelisaa SEO-ga, Google Ads-ka, Facebook Ads-ka si aad xirfadda professional ugu noqoto oo aadna raacdo outlines-ka. Haddii aad garanaynin si aad u raacdo outlines-ka, waxaad tegaysaa ChatGPT oo waxaad siinaysaa prompt waxaad ii qortaa outline ku saabsan digital marketing sidaan ku barato from scratch to advanced adigoo dhahaya. Xirfaddan labaad waxay noqonaysaa programming. Waa xirfad lagu sameeyo software-ska, website-ska, apps-ka, machine learning-ka iyo kuwaasoo xal u keenaya dhibaatooyinka ka jira suuqa iyo bulshada la nooshahay iyo dunida dhanba. Programming waxay isticmaalaan luqadooyin aad iyo aad u fara badan. Waxaad ka bilaabi kartaa from scratch ka bilaabay. Waxaad baranaysaa HTML, CSS, JavaScript, React and so on. Si aad u barto xirfadda programming-ka, adeegso free code campaigns, websiteska. Number 2 waxaad adeegsataa Code Academy. Markaad dhammayso waxaad bilowdaa inaad dhisto projects yaryar oo kaasoo xal u keenaya bulshada ku nooshahay. Waxaan ogaa dhalinyarada badankeed inay haysan lacag ku bixiyaan domain-ka. Waxaa jira platform waxaa jira website aad gelin karto koodkaas soo qortay si uu u muuqdo bulshada kale oo active noqonayo koodkaaga oona free ah. waxaan idiin soo saarayaa qaybta hoose insha Allah. waxaan ka samayn doonaa cashir insha Allah. Xirfadda saddexaad waxay noqonaysaa data analysis. waa hab lagu ururiyo, lagu falanqeeyo xogta si lagu soo saaro fikrado qiimo leh oo go'aamo lagu gaaro. Waxay isticmaashaa qalabyo aad u fara badan ama platforms aad u fara badan. waxaa ka mid ah Excel, Python, QuickBook, SQL iyo wixii la mid ah. Si aad u barato xirfaddan data analysis-ka, waxaad ka baran kartaa Google Data Analysis Certificate. Afraad waxay noqonaysaa Artificial Intelligence waa tiknoolajiyad lagu baro mashiinada inay wax bartaan
inay wax bartaan, xaliyaan dhibaatooyinka oo ay go'aan u gaaraan sida bini'aadamka ah. Waxay ku salaysan tahay machine learning iyo deep learning. Si aad u barato xirfadda artificial intelligence, baro aasaaska AI-ga adoo isticmaalaya Coursera. Xirfadda shanaad waxay noqonaysaa VTech skill. VTech skill waa isku dhafka tiknoolajiyadda iyo adeegyada maaliyadeed sida Bitcoin, cryptocurrency, iyo lacag bixinta online-ka. Waxay bixisaa hab casri ah oo maaliyadeed. Waxaad ka baran kartaa Coursera iyo edX oo leh koorsooyin lacag la'aan ah oo ku lixaad waxay noqonaysaa creative design ama graphic design saa u taqaanaba. Lagu abuuro muuqaal hal-abuur leh oo soo jiidanaya dadka sida sawiro, fiidiyoyaal iyo bogag website ah. Waxay adeegsadaan barnaamijyo sida Adobe Photoshop, Illustrator iyo Canva. Si aad u barato, adeegso YouTube-ka oo si fudud lagu tababarayo naqshadeynta oona leh free templates aad ku bedeli karto wax. Muuqaalkan maanta halkaas ayuu nagu egyahay. Waxaan rajeynayaa inaad wax badan naga faa'iiday. Fadlan nagu soo beegsi si aad ugu mid noqoto asxaabta nagu xiran kanaalkeena. Welcome.